maalmihii la soo dhaafay waxaa xoogaystay wararka la xiriira inuu madaxweyne xasan sheekh dib u furay doodda doorashada maamulada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle saddexdan maamul ayaa horey madaxweynaha ugu waafaqay nuuca doorashada toosan kooxo siyaasadeed oo qaarkood loo yaqaano inay madaxweynaha saaxiib leeyihiin ayaa warkan si weyn u ilfiyey waxaan ku xaqiijinay inaanay jirin wax iska beddelay aragtidii hore ee madaxweynuhu ka qabay madaxda saddexdan maamul taasoo ah inay doorasho toosan la qabtaan xasan sheekh weli kama tanaasulin hannaankiisa doorashada qof iyo codka ah markuu taas ka soo tanaasulo oo uu qaato aragtida doorasho dadban ayay iman karaan doodaha hoggaaminta saddexdan maamul ay yidhaahdeen ilaha ugu dhowdhow madaxweynaha ee aan mawduucan kala hadalnay haddii uu xasan sheekh ku jiri lahaa dareen dhow oo doorasho dadban ah wuxuu madaxweynuhu si sahlan ula heshiin lahaa axmed madoobe oo waxaan oo dhib ah lama mareen waxayna taasi si fudud kugu sheegaysaa inuusan xasan sheekh weli ka tanaasulin doonistiisa doorasho toosan madaxweyne xasan sheekh waxaa weli laga dareemayaa qanaaco uu ku qabo mashruuciisa doorashada iyo inay arrintaas la dhaqaajin karaan madaxda galmudug koonfur galbeed hirshabelle iyo waqooyi bari tii ay hadda fila soomaaliya ku daraynayso inay gobolka gada ku dhisto maamul cusub oo jubbaland ah oo 7 degme ee gobolkaasi ka bilaabi kara isdiiwaangelinta doorashada toosan ee dalka baaritaanada gaarka waxaan ku ogaanay in dadka sheekadan xoogga u iibiyey inay ku jiraan siyaasiyiin uu damac kaga jiro talada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle si ay shaki u kala dhex dhigaan xasan sheekh qoorqoor cali guudlaawe iyo lafta karen laakiin madaxweyne xasan oo arrinkaasi fahmay ayaa asbuuca soo socda shir la qaadan doona madaxda maamuladaasi si uu ugu xaqiijiyo inuusan ballankii ka bixin madaxweyne xasan sheekh oo ay hadda xamar u fadhiyaan mucaaradkii kuwaas oo hubaaruursi ku jira dhinaca kalena uu kaga furan yahay dagaalka axmed madoobe iyo siciidani rabana inuu sidoo kale dib ugu laabto dagaalkii argagixisada uma sahlana siyaasad ahaan furin cusub oo dhanka maamulada inuu isku furo tii oo dhinaca kale aanay madaxda saddexdaasi maamul qaadin wax u muuqda inay qiyaamayaan madaxweyne xasan sheekh